هبون ماشي قيسي شك ايش هيك هبون ماشي قيسي هبون ماركن wax walba waa soo ogaada gurigaaga ka imaaday ii sheeg haboon ma sheegaysi waa ka shalaynaysaa adaa kula hadlaa ii sheeg haab yaa xagee joogtaa hal mar oo ku soo wacay keed qof meeshaan xisaabtamay idil ayaa ii sheegtay waxa jiro in dhaqso guriga imaado waxba dagaalgelin hayaab doonad halaani adag xisaabtameena هبون guriga ma joogto miyaa habaan ma weydiinay inay joogtay in kale Zubeer habaan qol kuma jirto maxaa idinka dhaxeeya gabadha in sheeg maxaa iga qarinaysay sababta guriga u joogto ma ii sheegay mis aabba u sheega wax guriga ka dhacaya guriga ay imaaday hay weydiin midaas ii sheeg maxaa socdo gabadha maxay tahay baliis waa ku baraya waa ku sheega guriga ay imaaday gabadha isku kalaasnaay iyo wiil la socda imaado waxay ii sheegeen habaan inay aqoon u leeyihiin tee way gabadhaas idil allaha ii sheeg maxaa jiro هبون muddo dheer ayaan aqaanay waan ka helay wuxuu xiriir kala dhaxeeyay wiilka guriga imaanayay Jamaal oo aniga saaxiibkay ah sidee marka saaxiibka gabar uu xiriir kala dhaxeeyay aad soo afduubto guriga ugu soo qaris ma soo afduubanin midan waa shay ka dheer waxba kama fahmaysid waa fahma wax ii sheeg fahansii هلو هبون زبير سيد هاي وهم في عنا هذيك سيدات هاينا جمال رجل مايا وحدي ما جرين هبون زبير دبا جرو جمال التليفون ويجي خمل ها حقي جوكتا زبير وقت تجي وددا تاجنها وكبريا إيمو لابد دقيقة هذا كوي من هبون يسوق حدا صباحا هبون مركان نوتجي waxay ii sheegtay in nin aysan rabin lagu qasbayo inuu guursado yaa ku qasbooyin Jamaal hooyadiis Habboon iyo Jamaalna hal guri ay ku soo wada koreen oo hadday labadooda israbaan hooyadiis maxay ugu diiday sababta la iskugu diiday Habboon iyada xitaa ma ogeyn anaa u sheegay anigana waxaan rabay Habboon inta la raadinayo guriga inay sii joogto kadibna aan u sheego inaan jeclahay markaas ha kala doorato aniga Jamaal qofka ay rabto haddaad waxaan oo dhan goor hor ii sheegi lahayd fashilkan dhan ma dhici lahayn waxaan ka baqay in la ogaado Habboon guriga inay joogto hadda hal mid ma ii sameynay ma caawinay maxaa Habboon aniga raadinayo waana soo helayaa aabbo waxa meeshan ka dhacay inuu ogaado uma rabo hadduu aabbo yimaado oo ku weydiiyo wax Habboon waxaad leedahay gurigay joogtaa qolkooday ku jirtaa Zubeer midaas macquul maahan aaban uu ogaanayaa wax walba ma ogaanayo baliis inta ay samee okaadi Salmo Habboon inay baxday ma ogtahay qofta kaliya ma salaamayso ayada wax walbana way ogtahay Salmo سلمى عدي سلمى عدي ما حنوصلتها هنا حلقة معاه هردي ماي محنوسني أبا ماي أبا ما حكربتها عين طابون وشيلان نايري فيريا أبا هداك لها زيت أرماه هبون أنت كقبنا فايزو معاك كوراي لما دي لاي كبدا سلمى عدي ما ندويت شوكولاتة كوكينو ها هبون إني بعد هداك قرصو كوكينا هي way soo maahan anna ballan waay fridge chocolate kaaga soo buuxina ay badkaasna ku keenaa sax soo maaha صح هاي صباح قولك على الصحة من خوك كان جيفا
هاي ha isku soo bixin ya haye seexo galabta aad ayaad u fududaatay aad iyo aad sidaasna kuguma ogeyn annaga dagaal iyo buuq tabar uma hayno hadda seen waxyeelna hooyo noo sheega جمالية الجورج زبير حقي واي maxaa kartaa guriga subeer ma dagaala ugu tegaysaa aboonu sheegaa sababtu haboon u qariyay haddii meesha joogto aabbaani xirsi waa ku raacsanahay zubeer waa qaayin intuu qorshe kale noo degan waa in anaga gurigiisa ugu tagnaa oo hadda ma waxaad rabtaa ninkaad isdagaasheen inaad gurigiisa ugu tagtaan fiiri waa idiin jeedaa aqli aan dagaal ahayn maana aqli kale idinkuma jiro jamaal galabta haddii ay wax ku soo gaari lahaayeen ama aad wax geysan lahayd ma waxay kula tahay in caawa sidaan loo wada fadhi lahaa ma saasay kula tahay dhibaato iyo shar iyo buuqba ilaahan ka magan galnay ilaahayna nooma keenayo hooyo macaanuu dhibka naga daayo ilaahay yaqaan dhegeysta dhegihiinna fura si fiican dhegihiinna u fura arrinta habboon anigaa ku jiro cid aan aniga ahaynna tallaabo ma qaadi karta aanan ogeyn waa garateen sooma waxaa ii soo hartay arrintii subiir hadduu albaabkaas ka soo galo halkaan soo istaago qof la hadli karta malaha jamaal may maqashay baa ku maqan خلاص أبو سمع وطاعة jamaal subeer aabihiisaan ku heli karaa xaaji nuuri qaraabiyihiin jamaal xaggee u socotaa hooyo qolkayga aadaha waaya hooyo meel kale ha aadin yaa آوي سلمى مع شركة أخرنيسا maya aabbo way cashaysay way hurdowsaa في زبير هاي مي إيمان المياه ولي wuu imaadaa boqolkiisuu ku jiraa مونا لا عشايو أرضا وير haya zubeer aabbaa kuu wacaayo والله محي قربا waxba ma kaa rabay kaalma la cashay bas وسو عشي كله anaa u sheegay inaad maqribka soo xarooto oo aadan cashaynin عشان مرة بكله haddaa saas ku dhaw aabbuu shakinayo soo baxna la cashay مليك دريمة إنه حيقول عين maya caadi waa mal fahmaya فايزة aabbo سان صح معها بدأ مرتدى كو وحما أنت مياه aabbo way cashaysay laakiin intay ka xishoonay qolkeeda ku jirtaa سان رفاض واي ما أنت ودن قول كمي كجري عابو maalintii labadii markaan magaalada ku maqannahay ayada meeshaan ay joogtaa intaasi ku filantaa u malaynaa وجهي maxaa kaaga dhacay adi sariirtan ku dhufsaday sariirta maya aabo waxaa ka wadaa sariirta markaan kasoo kacay armaajada furneyd armaajada ay u dhacday waalidaada waa ogaa inay ku jijabinayso سلمى ما seexanin miya aabe maya aabbo salmo cashee beri iskuulaa leedahay soo aabo baxseexo ciddii guriga vilada aan ka karinayni lacagta kirada qaali waayay dhaheen maxaa dhacay waxay degan yihiin sano kirada in laga dhimo mee rabaan wax laga dhimaayo male aniga xitaa waan la hadlay laakiin ugu dambeyn waa xaliyay arrintaas waxaa waa suurtagal maahan aan dhahay bravo
شاء الله ساك وديار سنتين أو زبير وين مجيفة زبير ساك حلو روسوك عوب بحر يا أدعي ساك هلو ها حاج نور ما في عنها هي. الحمد لله ما قرتي حبون ها وين جرتها واي سيدخسيها بدن أنا كو إيمانيا واي سوح ودعين سوح وجيران gabadhan Zuweera noo keenay waxay ugu dhahay 2 bir hanala sii joogto safar ay aadaysaa iga dabar maxaa kale shalay ii sheegay gabadhan guriga saaxiibkiisa Jamaal inay ka soo dhuumatay oo loo qasbay guri ayada aysan rabin shaba booseedii qaad ayaa ooynays baxaya maxaa oohinta keenay adama isku dhacdeen mise Zubeer maya أنا زوير كوري واقوى مقنن أنا ما مقنن بحذ مسج محسلة مسج صدرت تليفون كذا نويدن ست إلا هذا يريد المسج جرتعتك معه زبير واكفلنا يا أرنتان إنه خابدرنا سمينا يا أذيك إنه كان مفلنا سداس تتركوز تترلمس تتنس تحس تتنشر قرستيتن إيشان آمن قير الله كسيو ما بيسدهين مردبا كوسو علينا لعقتا دكان كاب وسو أديقنا وكو عمرنا إلها سو سهل جعفر شقضو بلا ومشارتي وقهر يوقاتوا جعفر ورتويلك أديقا دلما هنا ها إلها بدل قير قبل كسي هي دشنا وحكومة ترين لما دادنا ويكاد ضيعان سقير آخر الله كاقدي آمين قدروا هاي قدر ربي عاد لكن أي صبرت gabadha waxaan caanuhu gadayaa Allah hadda ma kale guursanaysaa miya walaal aamin kabri kala xalafkaaga ma cunayso kulleetiga isida war kulleetigaaga inaan kaaga foq hadii aad rabtid ima qashida la qadayda xasan ima qashida la qadayda waa si taga sitaba gurigan ku sii laabana ma salaam إن شاء الله خير فرح فايسة حبون مالك شيء يدل هم في عنا سيت هذا هرت سلامت هنوضن بس حبون حقيقة خلصين صابت حبون قرنا نحيته صابت سأدل ويدينا أنا حبونك عقبها teeda kale adiga waa ka qiyaanoolayaalatiya yaan qiyaamaani adiga haboona mid kale walaalkay afkaada kala baxadi kale aniga waan isku ximaanayna walaalka maanta walaalkay Jamaal Ibrahim wiil fiican u heystay walaalkay dartiisana ku soo dhaweystay Jamaal yarka shalay kula socdo miya ha Zuweer saaxiibkiisa qaaliga waay shalay ka hor fiireedin walaalkay wax dambiya ma haboonna asiga ma soo qasbin wuxuu kuma soo wadanin ayada noo timaade oo weydiisatay caawinaad oo inaan qarino waan qarinay adiga badii lagu weydiin lahaa midaas waa sameyn lahayd laakiin haboon Jamaal jaceelkiisa waa inuu guursado rabi walaalkan halaas dhan wuu ogaa walaalkay Zuweer haboon ma jeclo mana rabo inuu guursado taas moogtaa خير هذا محد يقول ما دوير حبونا كاغا باهنا حبون maxay galnaysi aad idinka familkiina dhan waxa tiin dad dareen laabayaal ah aan ku weydiiyay haboon sababta u dooratay dad familka dareen laabayaasha maxay tahay dad familkeedu joogo ma qiyaas kartid xaaladda familkeena ay ku sugan yihiin shalay laay maanta aad ay u qasan tahay please idil sidaan ay u dhaaf kulay anaga Zuweer waxaas inuu nagu sameeyay ma ka filaynin aniga baan filaynin book psychology-ga iga soo doonays inay sidaas ahayd
dadku waxay isku gartaan hadalka xooluhuna waxay isku gartaan urta waxaan ula jeedaa hadalkii waa batay ee aan soo koobno waa siduu walaalkay geeddi yiri waxaan idinka rabaa reer Samatrow inaad isu keen qabadsiisaan gabadhu waa nala joogtaa oo waatana waa naqaanaa nalama joogtoon weligan ma arkin wax la yaqaano waa laakiin waa nala joogtay haddana nalama joogto wax waa sidaase wax caddaynaya noo sheega gabadhii waa nala joogtay waa naga tagtay meel ay aadana ma naqaano wax nagu filan ma aha oo aan laqi karno geediow waxaan dhexda kaga jiraa laba daran mid dooro gabadhii ma hayna idinma dhihi karno waa haynaana idinma dhihi karno oo meel kuma sheegno saas daraaddeed waxaan soo xusuustay mahmaahdii odhan jirtay dal abaara iyo doog cabsile midkee doorroon kolley fallaaro gelgelisho kaagama harto waxaan garwaaqsanay inaysan idinku filnayn gabadha way nala joogtay haddana ma hayno waxaa tala ahaan nala quman inaad wakhtina siisaan oo aan isku soo laabano berito xilligan oo kale warcadna aad naga heshaan warkaasi war xun maaha Samatrow says idinku aaminayna adigoo og wiilkaada Subayra waxa uu sameeyay isagoo habeen iyo maalin nala jooga oo gabadheedii haboonaheed nala raadinayo iyo haddana naga qarinayo marka si idinku aaminayna qoys noocaas ahtiin bal ii sheeg sheekadan waxay soo xasuusinaysaa Allah u naxariistay gabayaaga caanka ah ee qamaan bulxa oo yiri baadida nin baa kula daydaya daalna ka badan oo aan doonayn inaad heshana daa'im abidkaaga dadkuna moodayaan duulooda socdaan wax u dahsooneen marka qof noocaas ah si idinku aaminayna bal ii sheeg ducaalow dhalinyarada iyo akhyaarta kala reeb wiilkii Zubayr wuxuu falay annaga idinka xalinaynaa warkaas war xun maaha ducaale arrinta xaggee maraysaa meel cakiran balse rajay leedahay haddana oo soo talaleeya meeshii joogto waa ka tagtay lama hubo haddana waa soo dhowdahay arrinta habboon ducaalow anigana arrin kale rabaa inaan kuu sheego arrin see ah ninkii xirsi ahaa ninkii xirsi ahaa intuu naga maqnaa wuu guursadoo hadda waa xaasle maasha allah ilaa waxaan leeyahay ninka qurux badana ilaa ninku waa nin guursaday haye hadda waa kaas ahay adigana erge inaad ka noqotaa lagaa rabaa ergo see ah maadaama gabadha gurigan loo soo guurin rabo adigana soo inaad garab istaagto maaha okay garab istaagaas waa goorma marka kolley waa goordhow adigana u diyaar garow ma xumo warkaasi balse xoogaa dib ma loo dhigi karo maadaama arrinta habboon laga fadhiisan rabo adiga intaad u tagto u sheego waxaa ku tiraahdaa arrintaada dib u dhig tan habboonaa kaa muhiimsan annagaa balaaya arag wareedha arrintaas haddaad ii sheegtay haddalinkaan maqlooya mase caruurteyda intaan u tagaan dhahay heblow heblaaya kaa muhiimsan waa ku sidee adiga maadaaba dhaga kale leh oo aan habboonahayn bismillaahi raxmaan war horta goormuu guursadaa aniga waxba iima sheegin ducaal kolley aniga arrintan dhabtan kuu saaray adigii xirsina dhexdiina kuma jiro waan ka baxa walaa xawla walaa quwata illa billah war bal anaa arkaayo xirsi annagaa is arkayno kowdha ee caawa wax kale miyaa jira سمتر هلوك هذه بالله عليك بالاستجي may xaaji nuur Zubayr waa nin 30 jir ah wuxuu rabaa inuu dhaqmo sidii cayaal suuqnimo saan kuma wada joogi karno war wajiga iga qari
aabbo aniga waan ogaa inaan khaldamay anaa waxaa igu filan maanta ceebtan dhexda uga jiro war naga aamus samatar sidaas ma aha arrintu sidaas ma aha aan arrinta ka wada hadalno xalkeedana aan raadino subeer waxaa la yidhaha duhur dabadii doqon baa maalin mooda ma haysana waqti badan sidaas daraaddeed reer ducaale jawaab ayay naga sugayaan iyo inaan u geyno gabadhii meeshay ku sugan tahay marka arrinta xaqiiqadeeda aan ka wada hadal gabadha ayadoo aynaysi guriga ka tagtay sabab aabbo habboon sababta guriga ay uga tagtay waxay tahay sir aysan ogeyn ayaan u sheegay waxaa laga yaabaa sababtaas guriga inay uga tagtay oo la murugaysan tahay oo waa maxay sirta ayna ogeyn eed u sheegtay abti gabadhaas reer ducaale maysan dhalin way soo heleen way soo korsadeen waana laga qariyey waxaa loo sheegay nin abti u ah in uu dhalay oo mar hore dhintay maxaa kaa khuseeya adiga reerkaas wixii ka dhaxeeya berita odayaashaana sugaya gabadhii jawaab ay naga rabaan subayro waad noo sheegtay gabadhaas inaad asxaan badan u samaysay waana fiican tahay markii dhanka bini aadamnimada laga fiiriyo waxaan kaa rabnaa gabadhaas inaad nala raadiso nagu raadiso wax dhibayna gabadhaas ma gaadhaya insha allah waa sax gabadhaas hadda meel kuma sheega abti laakiin waan soo heli doonaa waana dareemaya maqnaanshaheeda culeyskeeda idinku tahay aniga ayaa akhbaarka keeni doona aad soo dhow walaa هاي حبيبتي ما انت حلو انا ما تي هذا شقيلي سيناس كافر سباربي اوكي كحلف انا ما تي انكستو برانك مدة نقضي هاو افتكر انها صاقة صوما حبي ابو ارنت هذا الى هذا ninkii xirsiyaa muxuu dabacsan yahay taagan yahay حبيبتي هذا قال هذا هو والله الله لكن أرين كلا قولي كتاعن أو حلو رادنا هذا لكن هذا الكاد وحuu og yahay qof mas'uuliyad ka carraayo istiri ما حبيبتي ساس معها هورا ما تقول كل أفطار أنت سوق هذه هورا نوم واقع so caafimaadkaada iga sheekee noloshaada jiifkaada cuntadaada furdadaada sewa والله حبيبتي كمان شيء ما جرى قولي هويلي جوجا قولي جوجي جري قولي كسب بربارة جوجا so هذا الإستر uma baahnid reerkaada ku dhex jirtaa gurigaada joogtaa soo maaha لا حبيبتي أوكتي أساسا دي أوكتي قف بوس كذا بوحنا يا ما جرى waa oga qof booskayga buuxinaysan usoo jirin استر حبيبتي ديار موت أنا أقدر بين قوس الخلو وسوي لا هاي يعني nolosheena isla bilaabano and inaa reerkaada i batid